ninka ila dhageysa waa madaxweyne Soomaaliyeed oo cadaalad wax ku wada wada bal ila dhageysa waa Cabdullaahi Farmaajo wey maaha goob mucaaradna maaha waa wax naga wada dhaxeeya oo masiiri ah bal dhageysta ku soo celinaya maaha goob mucaaradna maaha waa wax naga wada dhaxeeya oo masiiri ah sax weeye bal cadaalada fiiriya waxay ku adeeyeen maaha waa waxa umadu ay loo dhigtay in ugu amaanatay weey sax weeye naga wada dhaxeeya shacabka iyo qaylada dan maaha inaas dhageysana fiican sax weeye go'aan baa loo yaala masiiri ah umadana naga sugaysa sax weeye adeer waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka allah ku sharfo arrimaha doorashooyinka waxa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho صح doorasho xaq iyo xalaal ah oo tii maxamed siyaad barro kala ahayn anigu mas'uuliyadda ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod bilowgii 2017 war maxaa weeye dadba war waa maxay dad banaan buu yiri dad banaan sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod anaga dad banaanta duf ku bax asaasi ah weeye haye waana wax dastuuri ah haye in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed haye ayna qayb ka noqdaan go'aanka dawladoodu ay gaarayso oo hawiyana aagaado ka qayb galaan doorashooyinka haday tahay cod iyo haday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin been badan darteed inaan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin wallahi laan dheerowe ay noqoto ku furtu billahi runtii wey oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan hadda hawiyo ma qanacdeen marka aan magacawnay guddi liyaado guddiga wada xaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama FNTC la yiraahdo yaan magacawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftooda soo dirsaday waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan kheyraadka dalka uu ugu horeeyo shidaalka waxa kale oo shaqadooda ahayd inay ka shaqeeyaan doorashada shuruucda doorashada la isu soo dhaweeyay dowlad goboleedyada marka dambana sharci golahan uu ka soo saaro ilaahay waa noo fududeeyay shirkii baydhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada waxay labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo labadii ajendana ilaahay waa nagu guuleeyay oo kulli haddaan nahay dowladda dhexe iyo xubnihii